kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal cid wanaagsan kullu caam wa antum bil khayr fishanka Universal ee magaalada Toronto iyo bahdii oo isku duuban waa Mahad Carab oo Cali iyo Cali Bakar oo ah kaamiramanka weyn ee telefishinka Universal waxaanu joognaa masaajidka weyn ee Daarul Hijra ee ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada halkan waxa taagan dad aad u fara badan isla markaana maanta ku soo dukaday salaada ciida iyadoo halkan ay taagan yihiin dad aad u fara badan oo isugu jiro rag iyo dumarba aanu ku bilaawno ugu horeynta koobaad imaamka masaajidka Daarul Hijra asagoo dhamaan ugu hambaleenaya ummadaha islaamka meel walba ay joogaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa calaa aalihi wa saxbihi wa sallim ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikhayr waxaan dhammaan muslimiinta meel walbay joogaan ugu hambalyeynaya ciidda waxaan leeyahay ilaahay ha nugu gaarsiiyo sanadkan sanadkiisa kale barwaaqo caafimaad iyo ilaah subxaanahu wa tacaala in uu yacni soomaali haddaan nahay dowlad khayr qabta uu noo dhaliyo intaa kadib waxaan ummadda ugu baaqayaa dhammaan inay taageeraan masjid Daarul Hijra oo lacag lagu leeyahay ilaa hadda ka dhiman tahay ilaa 700,000 inay ka qayb qaataan waxaan leeyahay dhammaan jazaakum allahu khayran kulla caam wa antum bikhayr تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا المقعة سعيد عبد الرحمن waxaad ku soo dukatay masaajidka Daarul Hijra munaasabada ciida ya salaamaysa bismillah waxaan salaamayaa dadka muslimiinta oo dhan qaasatan waxaan salaamayaa Daarul Hijra waxaan salaamayaa TV-ga dhalinyarada Universal waxaan insha Allah u rajeynayaa islaamka meel ay joogaanba ciid wanaagsan sanadkan sanadkiisa inay ku gaaraan bashbash iyo ruwaaqo waxaan u ducaynayaa wadanka Soomaaliya waxaan u ducaynayaa ardul islaam oo dhabaatay wadada soo food saartay ilaahay idinkiisa waxaan rajeynayaa in muslimiinta ilaahay dib ka qaado qalbadooda isu soo jeediyo iyo wanaag iyo khayr baan u rajeynayaa waa mahadsantaa aniga waxaa la yidhahdaa cabdirashiix xasan xirsi oo ku magac dheer bakin waxaana ka mid ahay maamulka masaajidka boorka masaajidkaan ka mid ahay waxaan ahay gudoomiyaha Soomaaliyeed ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta runtii caawa waxaan ku ciidnay maanta ku ciidnay ciid aad u wanaagsan waxaan ummadda Soomaaliyeed ciid wanaagsan meel kasta joogtaanba ilaahayna waxaan ka baryaynaa ciidan ciideeda inuu ilaahay ugu gaarsiiyo khayr iyo barwaaqo iyo bashbash runtii farxad waxa ay ah maanta telefishinka Universal waxaan leeyahay oo madaxda nooga yahay Bakri iyo maamuladooda kala jooga daacilaha adduunka waxaan leenahay aad ba u mahadsantihiin ummadda Soomaaliyeed shaqada u haysaan runtii ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaanba masaajidkan waa masaajidka ugu weyn ee leedahay ummadda Soomaaliyeed oo runtiina ku jira bishan hadda aan ku jirno November oo ay tahay waqtigii la qaadanahaa oo noogu dambay 30ka waxaana laga rabay 1,400,000 ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto waxaan ka codsanaynaa inay masaajidkan badbaadiyaan ilaahay ayagana soo gurigooda janno uga dhigo oo guriga janno uga dhiso runtii waxaan leenahay ciid wanaagsan ciidaana waxaan ka codsanayaa ciideeda kale ilaahay wadankeena oo nabada inaan ku tukanno annagoo garbays haysan Soomaaliyeed meel ay joogto waxaan ka codsanayaa in la sacafiyo si gaarana waxaan u salaamayaa bahweynta isboortiga ee Soomaaliya meel kasta ay kala joogaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan wali waxaan bartamaha kaga jirnaa daawadaasha qiimaha iyo qadarinta loo barnaamijkeena Ciidul Adha isla markaana dadka muslimiinta ay ku soo dukadeen masaajidka weyn ee Daarul Hijra ee ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada waxaan la kulmay muwaadiniin Soomaaliyeed isla markaana halkan ku soo dukaday walaal magacaaga ugu horeynta koobaad السلام عليكم ورحمة الله walaal magacay waxa la dhahaa Cabdinaasir Cali Barre waxaana ka mid ahay odayaasha masjidka Daarul Hijra munaasabada Ciidul Adha awadeed yaad halkan ka salaamaysaa waxaan halkan ka salaamayaa awalan ummadda muslimiinta oo dhan ثانيا waxaan ka salaamayaa ummadda reer Canada khaasatan Toronto waxaana leeyahay kullu caam wa antum bikhayr waxaan kaloo salaamayaa eheladeyda oo kala jooga Yurub America iyo Soomaaliya khaasatan aabahay oo hadda nool Cali Barre jaamac waxaan jeclaan doonaa insha Allah taala inuu ka daawan doono telefishinka caalamiga Universal waana ku hambaleynayaa adiga iyo carruurtaada walaal magacaaga ciise cabdullaahi warsame ciise cabdullaahi warsame waxaad ka mid tahay community-ga masaajidka dadka ilaahay dartay ugu khidmeynaya maadaama adinka naftigiina aad leedihiin cod yaad halkan ka salaamaysaa maanta munaasabada Ciidul Adha awadeed maantay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dadka muslimiinta meel ay joogaanba waxaan leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak
waxaan leeyahay maantay dadka khaasatan Soomaaliyeed meel ay joogaanba khayr iyo barwaaqan u rajaynayaa maantay waa maalin loo baahan yahay in la iscafiyo oo la iska ilaawo wixii baastiga ay la soo dhaafay oo loo baahan yahay gacmaha in la isqabsado marka waxaan idinka rajaynayaa insha Allahu ta'ala meel aad joogtaanba in aad gacmaha isqabtaan ilaahayna qalbigiina isu soo dhaweeyo ilaahayna uu naga saaro waxa aan ku dhex jirno marka intaa baan maanta halkan ka soo jeedinayaa radioga TV-ga Universal waan mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin khadamaadka faraha badan leh aad u haysaan jaaliyadan Soomaaliyeed aad baad u mahadsantihiin wajazaakum Allahu khayran ilcafan waxaan la kulmay inta aan ku jiray barnaamijka salaamaha Sheekh Cabdirashiid oo kamid ah maamulaha masaajidka Daarul Hijra ee ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada ayaan waxaan weydiiyay bal sidoo maanta u arko munaasabada ciid ee masaajidka Daarul Hijra bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulihi wa aalihi wa saxbihi wasallam maasha allah maanta munaasabadii ciidda lagu tukaday salaadii ciidda markaskan weyn ee Daarul Hijra Islamic Center ee ku yaala magaalada Toronto galbeedkeeda run ahaantii waxaa ka muuqday farax iyo reynreyn iyo mataqaanaa dad aad u tiro badan oo kumaankuna isugu yimid maasha allah waa ciid waa munaasabad weyn oo islaamka ku ah mataqaanaa qaali oo aan jecelahay insha Allah taala inaan fursadan ka faa'iideysto marka hore u mahad celiyo walaalaha Universal TV kadib inaan salaan iyo bogaadin u soo gudbiyo dhammaan ummadda islaamka meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed in ilaahay ciideedan ugu gaarsiiyo khayr ilaahay inuu mataqaanaa waddankeena nabad ku soo dabaalo in ummadda islaamka iyo ummadda Soomaalida gaar ahaan uu mataqaanaa colaada iyo dhibka dhex yaalo oo ka qaado marka walaal guud ahaan maasha Allah ciidii waxay ahayd maasha Allah ciid aad loogu farxo oo ku soo aaday runtii maalin axada oo dadku fasax yihiin si weyn looga qayb qaatay markaskaana uu howlaha uu qabto sanad walba ay tahay ciidahan oo maanta oo aan dhihi karo maasha Allah si fiican ayuu ugu qumay marka mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan كل عام وأنتم بخير walaalayaal macal ciideen جزاكم الله خير العفو يا شيخ العفو thank you walaal magacaaga ugu horeyn magaceygii waxaa la yiraahdaa Saadiq Axmed Khaliif alxamdulillaah waxaan ku noolahay magaalada Toronto waxaan rabaa muslimiinta ku nool Toronto iyo caalamka oo dhan inaan dhaho ciid mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum saalih al-a'maal ilaahay ha naga aqbalo annaga iyo idinka acmaasha wanaagsan ilaahayna ha nagu gaarsiiyo ciidan ciideeda kale nabad iyo caafimaad inta un baa leeyahay wajazaakumullahu khayran waxaan leeyahay waa maasantihiin walaalaha Bakri iyo adiga ma sha Allah jazakumullahu khayran hawsha wadan salaamu alaykum hay walaal magacaaga waxa la yiraahdaa Ali Cabdiraxmaan waxaad degan tahay magaalada Toronto magaalada Toronto ma degan laakiin waa soo booqday dhammaan ehelka Toronto iyo dhammaan dadka daawanaya Soomaaliyeed waxaan leenahay ciid wanaagsan ciid mubaarak assalaamu calaykum السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مناسبة عيد الأضحى أوديت واحد كسر دكتة مساجد كوين دار الهجرة يكون على مقالة تورنتو دالك كندا هل كان يدقنتها سماه؟ هل كان دقلن تورنتو دقنه تورنتو أنا يا كسلام يسهل كان ما أنت مناسبة عيد الأضحى أوديت وعن كسلام يا واردكي هو يدي ولا عليه المهيجة iyo kulli dhan dereer daar hijle iyo Soomaalida aan wada tukano dhan waan wada salaamaya oo ku nool magaalada Toronto yaad kale halkan ka salaamaysaa waxaan kala salaamayaa muxuu ahaa sida khaaska aniga waxa ay familygayga oo maartay ilmahayga iyo hooyaday iyo baan ka salaamayaa magacyadoodana hadda waa shay kara laakiin guud ahaan baan u leeyahay waan jeclahay inay ka daawado doonaan telefishinka caalamiga Universal insha Allah ta'ala waa mahadsantahay annagoo ku kuudu jirna munaasabada Ciid al-Adha ee masaajidka Daarul Hijra Center ee ku yaala magaalada Toronto ee dalka Canada ayaan waxaan la kulmay Germanka masaajidka Cabdirasaaq Godane isla markaana halkaan maanta ka dhawaajiyay in qiimaha uu qofka islaamka u leeyahay masaajidka isla markaana tabarucaadiisa ayaana ugu horeynta koobaad aan weydiinay bal sidoo arka maanta munaasabada Ciid al-Adha ee magaalada Toronto ee dalka Canada bismillaahir rahmaanir rahiim وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا وما تنتين ولا ليال صدقايا له ونوجت معدن مساجد كان دار الهجرة وسنتركا إثيوبيا كويا له ماشي Soomaalida ugu badan tahay maanta waad arkayseen wixii ka dhacay ciidda si wanaagsan baa loogu ciiday waa meel aan ka fogeyn dadka Soomaaliyeed masaajidka run ahaantii dib badan buu soo maray lacag fara badan baa lagu lahaa
laakiin anoo ka jawaabaya wax walba waxaa ka fiican maanta masaajidkaas waad arkaysaan sidii loogu ciiday waad arkaysaan ummadda soomaaliyeed siday isugu timi waxa weeye anigu waxaan u arkaa guul bilaabatay 3 sano ka hor haddana socota insha allahu tacaala jirina doonta innagu markaynu adduunkan ka tagno meesha tani waa meel aad u fiican oo weyn oo soomaalida oo dhan qaada intaasaan kuu sheegayaa walaal mahadsantaha jazakumullah khayr asalaamu calaykum annagoo weli bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena ee munaasabaddii qaaska ahayd islamarkaana ciidul adxa ee masaajidka daarul hijra ee ku yaalla santarka magaalada toronto ee dalkani kanada ayaan waxaan la kulmay gabar soomaaliyeed oo halkaan maanta ku soo ciiday islamarkaana ku dukatay salaada ciida walaal ugu horreyn magacaaga xamda torontoad degan tahay toronto deganaha okay yaad ka salaamaysaa halkaan maanta munaasabadda ciida aawadeed yaad ka salaamaysaa halkaan munaasabadda ciida aawadeed hooyo iyo aabbo iyo walaalahe oo ku kala nool toronto ay ku nool yihiin sidaad u aragtaa maanta ciidda ciid fiican maalin fiican waaye halkeed u socotaa qofba wuxuu u socdaa Ottawa Alberta Calgary halkee baad maanta ku iidaysaa adiga aad aadaysaa inta ku iidaya insha allahu tacaala waa mahadsantahay xamdi thank you annagoo weli bartamaha kaga jirna munaasabaddii gaarka ahayd ee ciidul adxa ee masaajidka daarul hijra center ee ku yaalla magaalada toronto ee dalkani canada ayaan waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka masaajidka ehelka oo islamarkaana wax ka qaban qaabiya ayn walaal magacaaga waxaa la yidhaahdaa aniga xasan cali insha allah waxaan ka mid ahay dadka sida joogtada uga volunteer gareeya masaajidka weyn ee wastiga magaalada toronto ku yaalla liya daarul hijra islamic center insha allah maanta waa maalin weyn waa ciid weeye waa maalin barakaysan waa maalinta muslimiinta adduunka geesihiisa oo dhan ay farxayaan oo ay ciidayaan oo ay salaamayaan oo khayrka iyo wanaagga isfarayaan oo ummaddu ay faraxsan tahay islaamka waa farxadda ugu weyn ee dadka muslimiinta ahi mid ka mida ay leeyihiin dadka muslimiinta ah oo dhan anaa ku hadlaya magaca daarul hijra islamic center waxaan ummadda muslimiinta gaar ahaan kuwa reer Canada iyo kuwa reer Toronto aan u soo jeedinayaa ugu hambalweynaya ciidda weyn ee ciidul adxa ayaan leeyahay ciid mubaarak antum bikhayr kullu caam antum bikhayr jazaakumullahu khayran waxaan idin rajaynayaa inaad ilaa ciideeda kale khayr iyo baraare iyo wanaag aad ku waartaan insha allah saasaan idin rajaynaynaa annaguna aad baan u faraxsannahay idinkana sidoo kale idin rajaynaynaa khayr iyo guul baan insha allah ummadeenna Soomaaliyeed dhammaan u rajaynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intii aan ku guda jirnay munaasabadda ciidul adxa ayaan waxaan la kulmay mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee islamarkaana ku soo dukaday masaajidka weyn ee daarul hijra center ee ku yaalla magaalada toronto walaal magacaaga Saciid Yuusuf Diiriye ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan u rajaynaynaa ciid wanaagsan dhibka Soomaaliya ka jira inuu Ilaahay ka qaado ayaan baryeynaa gaajada inuu ka qaado colnimada inuu ka qaado in ay dad wada dhashay oo midnimadooda ka shaqeeya ciidda ka dambayso inuu Ilaahay ka wada dhigo ciid mubaarak salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu inta aan ku guda jirnay munaasabadda ciidda ayaan waxaan la kulmay mid ka mid ah muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Toronto ee dalkani Canada walaal magacaaga magacaygu waxaa weeyaan Cumar Xaaji Xuseen Kawtame waxaan runtii aan deganahay Ottawa ayaan deganahay booqasho ayaan waxaan ku imid mataqaanaa Toronto ayaan ku imid maalin ciida ayaan la kulmay munaasabad weyn weeyaan waxaan dhammaan fariin u dirahayaa salaan ah dhammaan carruurtayda wixii dibadda jooga iyo wax gudaha ku jira Soomaaliya jiraba intaba carruurtayda waxaan u dirayaa salaan baan u dirayaa dadkana dhammaan Soomaaliyeeda dhammaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ha la iscafiyo oo mataqaanaa haddii la kuro waa maalinta ugu fiican oo dadku inay iscafiyaan ay u baahan tahay hala nooleeyona Soomaalinimo hala nooleeyo isku midna noqda garabkiinana allaha galo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazakumullah khayr maanta oo ah maalinimo ciida islamarkaana dadka ay ku kala iideen magaaladan Toronto ee dalkani Canada iyo goboladiisa uu ka kooban yahay ayaa waxaa xaflad aad u qiimo badan ay ka dhacday masaajidka weyn ee daarul hijra center ee ku yaalla magaalada Toronto ee dalkani Canada ayadoo ay ku soo dukadeen dad aad u fara badan oo lagu tilmaamay Soomaali ah oo halkaani si aad u soo libistay islamarkaana ka soo qayb qaatay munaasabadda ciida waa mahad carab oo cali telefishinka universal magaalada Toronto ee dalkani Canada